Alright. Waxaan rajeynayaa in application React si sax kugu install garaysamay aadna u jeedo landing page-kan. Haddii landing page-kan aad taagan tahay, congratulations, waxaa hore usii gudagalaynaa marka React inaan page-kani waxa sida uu ku yimaaday inaan hal mar isla fiirin. Okay, so I'll go back to Visual Studio Code again. Alright, so meeshaan tahay waxaan dhahay folderkan waxaa ku jiro ama filekan waxaa ku jiro dhammaan waxa aan ku shaqeyn doono. Waxaan sameynayaa marka everything oo pagekan ku jiro waa delete garan doonaa. CSS kana ama SRC gan aan hawada ku marka la sameeyo doonaa hal ma tiri karo move to trash adi doonaa. Forna marka meel banaan istaagi doonaa. meel banaan istaagno folderka waxa dhigi doonaa SRC hadda ii samey. Now marka haddii aan ku laabto pagekeena cilada dhacayso. For now soo ujeedid wuxuu leeyahay compiled with problems module not found cannot resolve src index.js. Sababta maxaa waaye wuxuu kasoo kacaa pageka index.js oo src ku dhex jiro. Sababtana waxay tahay anaga waa tirnay dhammaan files meesha ku jiray. waxaan sameyn doonaa src ga ku laaban doonaa. waxaan sameyn doonaa new file waxaan dhigi doonaa index.js. alright, so meesha uu fileka kasoo kacayo waa halkan. okay, maxaa ku dhex jira marka meeshaan? for now save hadaa dhaho oo sidiisa uu laabto. for now saa ujeedid everything waa okay. so cilad kale waxaa ujeedaa in save reload taa dhaho cashkii weli uu haystaa wax kuma jiro page cadaan oo blank ah ayaa ujeedaa waxba ma hayno. sababta maxay tahay pagekan oo index waa page cadaan ah waxba kuma jiraan. alright, so pagekan maxaa lagu soo bandhigaa? basically pagekan waxaa lagu soo bandhigi doonaa React DOM waxa la yiraahdo. React DOM maxay tahay marka? waa React document yaa laga wadaa, document object modelkii caadiga aan naqaynay. JavaScript yaa kusoo aragtay waxyaalahaas. maxaa sameynaynaa marka? waxaa jira waxa la yiraahdo import syntax. importiga muxuu yahay? waxaa soo include garaysanaynaa wixii PHP yaa kusoo arki jirtay include one is include haddii JavaScript hore aadan soo arkin oo kale waa. waxaan dhihi doonaa import, waxaa soo import garaysaa. waxaan dalbanaynaa React oo R capital ah. waxaan dhihi doonaa React DOM. okay, React DOM marka intee ka imaanaysaa? waxaan ka keenaynaa waxa la yiraahdo package oo haday markii React la bilaabayay oo aan idhahay React DOM oo install gareyna taa dhihi doonaa. waxaa ujeedaa from React-DOM ayaa ka keenaysaa. muxuu qabanaa marka balkan? waxaa loogu talagalay in waxyaalo badan sida in pageka waxa soo load gareynaa wixii aan ku soo load gareynayni adeegyo badan si guud adiga DOM-ka inaan ku adeegsana ayaa loogu talagalay, which is cool. okay, so maxaa sameynaynaa marka? pagekeena weli waa cadaan. haddaa fiiriso pagekeena weli waa cadaan. pagekeena weli waa cadaan. see wax ugu soo bandhigaynaa marka? see wax ugu soo bandhigno marka waxaan sameyn doonaa React DOM-kan ayaa wax soo render gareyn doona. waxaan dhihi doonaa React DOM soo bax dot method wuxuu leeyahay la dhahayo render. renderkan waxaa waaye inuu wax soo bandhigo. muxuu soo render gareynaa marka? waxaan dhihi doonaa waxaa soo bandhigi doontaa hadday marka koowaad haddii aad xusuustaan filekan public and folderkan public waxa ku jiro waxa la yiraahdo index.html. index.html kan waxa waa halka file single page application ka React ay kasoo install ama kasoo kacdo. meesha waxa dhan kusoo bandhigmayana waa halkan root ama meeshaan node-kan oo la yiraahdo id-ga root. meeshaana wax walba kusoo bandhigmayaan. okay, su'aal haddaa dhaho hello oo meeshaan aan save dhaho tusaale kan for now aan waxba ku sameynin oo comment la iska saaro oo dib ugu laabto pagekeena maxaa soo baxay? fiiri hello ma jeedaan? haddaa soo dhaweeyo hello. hellodan marka waxay ka timaaday meesha index. for now meeshaan maro inaan saas usoo bandhigo qaab professional oo React ay u fahansan tahay ayaan rabaa inaan usoo bandhigo oo programmatic ah. marka waxaan oo qabanaya arrinkaas midkan manual inaan u sameeyo marna asiga ayaa React sameyn doona. waxaan dhihi doonaa React waxaa soo render garaysaa. maxaa soo render gareynaa? laba shay u baahanaa marka waxa la soo bandhigayo iyo meesha lagu soo bandhigayo. for now waxaan dhigaynaa tusaale waxaan soo bandhigtaa h1 waxaan dhigaa hello world noo soo bandhig. okay, hello world aad soo bandhiga muxuu intee ku soo bandhigaa marka? saa idin sheegay waxa lagu soo bandhigi doonaa meeshaan id-ga root ay ku qoran tahay. JavaScript-gaaga xusuuso command dhigi doontaa
maxaa la dhihi jiray markii lasoo qabanayo shay id ama by id laba shay aa la dhihi jiray soo ma document.get element by id ama document.query selector aa la isticmaali jiray marka for now waxaa caan ah inaan dhahno document.query selector labada waa dhihi karnaa aan dhahno sida react ay isticmaasho oo get element by id ah then waxaan dhihi doonaa id-ga maxaa lahaa root id-ga root meeshaan ka keenay wax harta u bixi kartaa laakiin for now root waaye waxaan isku bedelin ma aqaan wax kugu dhici doon laakiin for name conversion sidaan ha ku ahaado alright save aa dhihi doonaa for now aan ku laabta page-keyga maxaa isbedelay here we go so page-keyga maxaa kusoo bandhigay hello world oo ka timid react router domkii oo ande react domkii uu noo soo sahlay oona ahayd inuu soo import gareeyo ama soo bandhigo rootkan uu kusoo bandhigo fileka koowaad that's marka waxa uu noo qabanayo index.js alright marka macquul ma hello world-gan iyo lama soo bandhigayo sababtoo application waaweyn la dhisi doonaa oo la sameyn doonaa hello world-ga ma soconayso sidee marka wax la sameyn doonaa waxaa jira wax la yiraahdo components aa jiri doono oo aan gali doono laakiin waxaan sameysan doonaa file oo root ah oo wax walba ee meesha kasoo faracmaya intii aan meesha maanta dhan imaan lahayn waxaan sameynaynaa file root ah fileka rootka ah wuxuu noo noqon doonaa app.js oo bixi doonaa capital app.js app.js kan muxuu noo qabanaa marka app.js kan waa component weyn oo page-keena dhan ama application-keena dhan uu kasoo kici doona asigana componentska later on u gali doonaa laakiin waa meesha hadda application-keena uu kasoo kici doono application-ka marka si uu shaqeynaa marka componentska sida u shaqeynayaan JSX waxay yiraahdaan jir suu shaqeynaya waa later on waa fiiri doonaa laakiin for now ila fiiri bas waxaan dhihi doonaa function app aa dhihi doonaa waxaa same as fileka magaciisana u bixisa aad name conversionka loo sameynaa waxaan dhihi doonaa marka functionka marka wuxuu yahay waa wixii lasoo bandhigi lahaa alright so functionkan maxaa ku jiri doona waxaan dhihi doonaa marka waxaa return aa sameyn doonaa return waxaa soo celisaa let's say h1 hello from app aa dhihi doonaa alright so hello from app markaa dhahno waxaan rabaa marka beeshaan aan dhahayo hello world-ga ah waa bedeli doonaa waxaan ku bedeli doonaa hello appkaas ku bedeli doonaa muxuu noqonaa marka hello app waxaan dhihi doonaa page-ka maxaan u bixiyay app ayaan u bixiyay now marka app ma shaqeynayso sidaan haddaa dhaho for now safe aa dhihi doonaa ciladana qabsan doonta fiiri waxaan leeyahay compiled with problems muxuu yahay problemka app is not defined sababta maxay tahay appka waa define garaysan yahay laakiin meeshaan lagama yaqaano appka sidaan loo isticmaalo for now ha ku wareerin waxaan componentska sida loo wacdo waa gali doonaa tutorial dhan uga hadli doonaa laakiin waxaan rabaa inaan conceptiga guud oo reactiga qaabka lisugu soo xiraayo aad fahantaan for now marka appki lama yaqaano appka see lagu aqoonsan doonaa marka sidaan saa ujeedaan waa html caadi ah html tag adoo diff dhahay oo kale waa adoo sidaan dhahay oo kale waa for now marka wixii componentgan wuxuu ka imaada app.js kan waa si markaba app.js kan uu valid u noqdo oo dadka loo isticmaalaan waa inaa export gareynaa export maxaa waaye filekan in meelo kale laga isticmaali karo marka dhowr way u sameyn karnaa inaa default ka dhigno iyo inaa caadi u sameyno waxaan dhihi doonaa marka export waa soo bandhigaynaa waa sii saari kartaa macna export inaan ku sameynaynaa sida degadii oo kale la soo xasuusays import export ma dhihi jirno import hadaa intaa ku isticmaalan hadaa xusuusataan react dom oo library aan install gareysanayni intay ku wada jiraan dhammaantood meeshaan so react dom waa kan waa wax la soo include gareynayo for now kan waa si export gareynayna waxa export gareynayna maxaa waaye appkana export gareynayna soo dhayna marka waxaan leenahay default ahaan default iyo mid kale wax u dhaxeeyo arki doona for now laakiin sidaan u fahan export waxa waaye si loo aqoonsado application-ka banaanka loogu aqoonsado meeshana imaana save alaha still wax ma shaqeynayaan hadaa fiiriso wali cilad way taaganta sababta maxay tahay waa soo export gareysay let me close this one also this one waa soo export gareysay laakiin meel ma laga isticmaalin kan si uu isticmaalo meeshaan waxaan ku qasbanahay inaan import gareyno marka meeshaan waxaan dhihi doonaa import maxaan dhihi doonaa app from into ka imaana
intee laga soo import garay intee laga soo export garay asiga isla meeshii waaye waxaa dhihi doonaa app.js oo ka imaada. Now save aa dhihi doonaa. Now save, go back to the browser, refresh aa mar kale, module not found, cannot resolve app.js. Why you do this? Alright, aan fiirino marka why okay app.js isla meeshaan // adhaho si document root ahaan uu aqoonsado again. Yeah, great. So meeshaan // waxay ka macno tahay meesha hadda aan taaganahay waa macnaa folderka hadda aan joogo. Ilaan for now index iyo app isku folder waay. marka maadaama index aad taaganahay waxaan dhihi doonaa meesha hadda aad taaganahay kadib waxaa soo akhrisataa app.js. now meesha haddaa fiiriso appkii waa la soo aqriyay saa u jeedid meesha hello from app meeshaan waaye intaa kasoo aqrin. haddaa rabto waa bedeli kartaa waxaad leedahay new save that, here we go. arrinta kaloo muhiimka ah inaa ogaataan la rabo waxa waaye uma baahnid inaad refresh dhacdo. meeshaan saa u jeed anoo refresh dhahay ma arkaysaan may sababta waxay tahay asaa automatic wuxuu wataa server oo isla markii refresh gareynayo si uu ogaado changeska babel wax la isticmaala. so new cs kaas hadaa ku daro for now refresh laga baahna automatic asaa soo qabsanaya stas. okay so waxaa marka isla fahanay sida loo isticmaalayo reactiga iyo qaabka ay wax usoo render gareynayso. waxaan rabaa marka next inaan fiirino waxyaalahan qaabkan loo qorqorayo. waxaan u maleynayaa inaan ku dhex wareeraysin sidaan wax u socdaan iyo qaabkan appkan maxaa laga wadaa iyo what's going on return iyo waxaa isku dhex qorayaa html caadi ah. waa xaalad caadi ma tahay macnaha su-aalahaas in isweydiinaysa laga yaabaa. casharka xiga ayaan kaga jawaabi doonaa su-aalahaas. waxaa la isticmaalayaa wax la yiraahdo JSX oo reactiga ay isticmaasho oo loo qaab reactiga la isku dhex qoraayo javascript iyo expressions caadi html la isku dhex qoraayo. next video gali doonaa waa crash gareyn doonaa waxa JSX laga wado iyo qaabka uu shaqeeyo insha Allah. so waxaan rajeynayaa marka inaad fahanteen hadalkayga. next lesson aan ku fiiri doonaa JSX. goodbye.